xuska maalinta qowmiyadaha dalka Itoobiya ee loo yaqaan Gimbood oo ku beegan 26 sanad walba ayaa xarunta qunsuliyadda Itoobiya ay ku leedahay caasimadda Puntland ee Garowe. Munaasabad ay ku xusayso maalinta 26 Gimbood oo ku beegan markii shacabweynaha Itoobiya iska tuureen xukuumaddii ku dhisneed kala qaybinta iyo caburinta shucuubaha Itoobiya ku qabatay magaalada Garowe. waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cumey, qunsulka Itoobiya u fadhiya Puntland General Asmalash, xubno ka tirsan labada gole, saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka qowmiyadaha Itoobiya oo u badan Soomaali iyo marti sharaf kale. madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo qunsulka Itoobiya si wada jir u jaray keeg ay ku xidhan yihiin xarfo ka turjumaya maalinta Gimbood ayaa waxaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada munaasabadan. qunsulka Itoobiya u fadhiya Puntland General Asmalash የዕለቱ መልእክት ማንታ ፈሪታ ተረከተረይኖ ህዝብን ማዕከል ያደርጋል። ሻዕብካ አይገዱለሳ ሻዕብካ ያለገዱለያ እኩልነትና ፍትሃዊነትም ተጠቃሚነትም የስናንታ አይወጀለሳ አስከፊው የደርግ አምባገነናዊ የአፈናና የጭቆና አገዛዝ ስርዓት ደውለቲ ፋሺስት ጋር የሁኩመት ይደርግጋ በደህንነትና ኋላ ቀርነት ውስጥ የነበረች ሀገር ኢትዮጵያ ወአያት ወጣት ፍዳ አየጋቸው የደባቶ በተፈሱዎች ላይ በኢትዮጵያ ህዝቦቿ ትግልና መስዋዕትነት የደርግ ስርዓት ከተገረሰሰ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝቦች መሰረታዊ ጥያቄ የነበሩት የሰላም፣ የልማት፣ የዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cumey ayaa hambalyo u diray shacabweynaha Itoobiya xuska maalinta 26 Gimbood oo laga soo hormariyay xilligii ay ku beegneyd bisha barakeysan Ramadaan awgeed. waxaan rabaa inaan hambalyo guud sagaalka maamul iyo shacabka reer Itoobiya iyo dawladda federaalkaba uga hambalyeeyo maalintan weyn. hambalyaan idin leeyahay guud ahaan in dawladda Itoobiya ay cagta saartay wadadii horumarka markii xukunku uu ku wareegay dawladdan hadda jirta oo markaa madax ka ahaa Malla Zenawi. dareemayaa siyaasadda uu hadda ku hogaaminayo Haile Mariam Desalegn tii uu tahay waana hubaa inay u horseedayso dawladda Itoobiya midnimo iyo horumar iyo nabad. wakiilka qaramada midoobe u fadhiya Puntland Mr. Howard ayaa si gaar ah ugu hambalyeeyay dawladda Itoobiya. On behalf of the UN in Puntland, I would like to congratulate Ethiopia on this 26th anniversary. Ethiopia has become strong, it's become a superpower, both in the African context and in the regional context. munaasabadan oo qabanqaabadeedu waayahan bay ka socotay xarunta Puntland ee Garowe ayaa ku soo idaatay jawi aad u wanaagsan. Axmed Shaam, telefishinka caalamiga Home Cable, Garowe.